bismillaahi raxmaani raxiim kulanti waxaan u wanaagsan dhammaan baaqiyaartaana dhageysanaysaay halkani waa dhexnimo.com kuna soo dhawaada barnaamijkeeni ka faa'iid oo aynu ugu talagalnay dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogto inay ka faa'iideysato taxanaha barnaamijkan oo aanu haatan bilownay ayaa socon doona muddooyinka inagu soo aadan hadii eeba idmo toddobaadkan waxaynu ka soo qaadan doonaa 6 qodob oo ay leedahay sinjibiisha oo ay Soomaali badan taqaan ayaynu toddobaadkan ku falanqeyn doonaa bal faa'iidada ka dhaxsoonayd ee aanay hore u ogeyn sinjibiishu waxay leedahay taariikh fac weyn oo qarnigii 19aad waxa sinjibiisha loo isticmaali jiray cabitaanada lagu darsado iyo sidoo kale roodhida iyo cuntada lagu darsado baaritaano qoto dheer oo lagu sameeyay sinjibiisha waxa lagu ogaaday inay sinjibiishu faa'iido weyn u leedahay sidoo kalena ay waxtar buuxa u leedahay maqaarka ama dubka sare ee bini'aadamka qodobka koowaad aynu ka bilaabayna waxa uu dhigayaa waxa sinjibiishu waxay wanaajisaa dheefshiidka ama sidoo kale cunto mareenka waa qofba sidoo u yaqaanay taariikh ahaan sinjibiisha waxa loo isticmaali jiray in lagu daaweeyo xanuuno dhowr ah oo ku dhaca caloosha sinjibiishu waxa loo arkay inay tahay shay qaboojiya caloosha kana saara gaaska ku jira calooshka oo dad badan ay ka cawdaan qodobka labaad ee ku sii xiga waxa ay daaweysaa labada ama yelaalugada waa sida loo yaqaanay cunida jirida ama ifta sinjibiisha iyadoo aan la tumin ama aan la garaacin sidoo kalena aan la ridqin waxa ay daaweysaa labada ama yelaalugada saddexaad waxa ay sidoo kalena waxay wanaajisaa wareegga dhiigga iyo sidoo kalena inuu si sax ah u wareego sinjibiishu waxa ku jira maado lagu magacaabo creamium magnesium iyo zinki kuwaas oo ka caawinaya in dhiiggu si fiican u socdo waxaana ilaalisaa qandhada iyo dhididka faraha badan ee jirka ka yimaada sidoo kale qodobka afraad waxa uu ku oranayaa hargabka oo daraasadan lagu ogaaday hargabka ayamaba durayga ayay daaweysaa isla mar ahaantaana ay gabi ahaantiisba ka hortagtaa sinjibiisha kumanaan sano ayaa loo isticmaali jiray hargabka qaaradda Aasiya jaamacadda Maryland Medical Center ayaa sheegtay inay dad hargabka qaba ku daaweyn jirtay 2 qaada ama 2 malqacadood oo sinjibiila oo lagu daray koob biyo kulul ah qodobka shanaad ee ku sixiga waxa ay la dagaalantaa kansarka inta badan waxaad ogtay waayahan dambe qaaradda Yurub dadka ku dhaqan inay ka cawdaan kansarka ama dadka ajnabiga ah haddaba sinjibiishu waxa ay la dagaalantaa kansarka inkastoo oo kansarku farabadan yahay oo qaybo farabadan leeyahay waxa ay ka hortagtaa kansarka la yiraahdo colon cancer iyo kuwa kale oo tiro badan qodobka ugu dambeeya ee lixaad waxay ilaalisaa ama ay kordhisaa difaaca jirka oo ay xoojisaa sinjibiishu waxay xoojisaa difaaca jirka hadii aad waxoogaa yar oo sinjibiil ah maalin walba qaadato waxa ay ka yaraysaa khatarta wadna xanuunka ama faliidka waxa loo yaqaano wahagaag dhageystayaal inta waxaynu barnaamijkeeni ka faa'iid oo aynu toddobaadkan ku soo qaadanay sinjibiisha iyo faa'iidada ay u leedahay bulsho kasto ama cid kasto oo isticmaasha toddobaadka kalena waxaynu ku soo qaadan doonaa qodob kale oo kan ka sii faa'iido badan intaynu toddobaadkan kiisa ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa aniga farsamayaqaanka barnaamijka maanta iyo dhammaan sidaa iyo nabadgelyo